السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جالك مالمها waxaan idin soo gudbaynaa qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa waxay dhex martay laba ruux oo diris ah. labadaa nin ee diriska ah ayaa midkood wuxuu ahaa muslim, midka kalena wuxuu ahaa nin majuusi ah oo haysto diinta majuusiga. ninkani majuusiga ayaa wuxuu ahaa nin aad u dhib badan, wuxuuna mar waliba dhibi jiray ninkan diriskiisa ah ee muslimka ah. hase ahaatee ninkan muslimka ah mar waliba wuxuu ahaa nin dulqaad badan, isla markaana sabar muujiya. ninkana majuusiga ayaa wuxuu samayn jiray mar waliba waxyaaba wasaqa ayuu soo qaadi jiray, wuxuuna u soo dhigi jiray ninka muslimka ee diriskiisa ah. ninkana muslimka mar waliba wuxuu samayn jiray waxyaabaha qashinka loo soo dhigo ayuu wuxuu ku kori jiray weel, markaasuu qaadi jiray. muddo dheer kabacdi markii xaaladu sida ahayd ayaa waxaa xanuunsaday ninkii muslimka ahaa. markii muddo uu jiifay ayuu adeeg u soo diray, markaasaa ninkii majuusiga u yimid. ninkii majuusiga wuxuu arkay marka uu guriga soo galay ninkan muslimka uu yeelo weel oo uu ku kori jiray qashinkii uu keeni jiray. ninkii majuusiga markii uu arkay qashinkii tirada badan meesha yaalo iyo ninkan muslimka ah ee mar waliba aan ka sheeganaynin isla markaana wasaqda iska qaadayo ayuu weydiiyey. kaasuu wuxuu ku yidhi, niyahow qashinkani muxuu yahay? kaasuu wuxuu ku yidhi, qashinkani waa midka ii soo dhigi jirtay, sidaa darteed mar waliba waxaan ku fikiri jiray inaan qaado oo aan kugu soo celinin. ninkii majuusiga aad ayuu u yaabay, markaasuu wuxuu ku yidhi, niyahow waxaa tahay nin wanaagsan, maadaama aad intaas ii sabraysay waxaan dareemaya inaad tahay ruux wanaagsan. markaasaa ninkii muslimka wuxuu ku yidhi, niyahow dhaqankani waxaan ka keenay diinta aniga haysto oo islaamka ah, maxayna diinteena ayaa waxayna faraysaa inaan mar waliba qofka iska saamaxno isla markaana iska cafino. ninkii majuusiga aad ayuu ooyey, wuxuuna isla markiiba go-aansaday inuu diinta islaamka soo qaato. sidaa ayuu kusoo islaamay oo islaamkii ku qaatay. qisadani halka ay ku eg tahay. qisadani waxaan ka faa'iideynaa inay mar waliba habboon tahay inaad dadka iska saamaxdo isla markaana aad u dulqaato dhibaatadooda, maxaa yeele waxaa dhici karto in wanaaggaaga ay sabab u noqoto in ruux kale oo aan muslim ahayn oo kusoo islaamo ama diinta islaamka kusoo galo. ninkani maadaama uu ahaa nin xun, ninka muslimka kuma uusan daysan, isla markaana ma uusan ka argudanin, balse uu sabri jiray. sabarkiisii iyo dulqaadkiisii ayaa wuxuu keenay in ninkan majuusiga ah inuu diinta islaamka soo galo, islaamkana u qaato. sidoo kale qisadan waxaan ka faa'iideynaa in mar waliba aad ilaaliso xaqa dariska uu kugu leeyahay, maxaa yeele darisku xaq badan ayuu kugu leeyahay. sidaa darteed rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dardaarmay in la dhowro dariska isla markaana la ilaaliyo xaqiisa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamalkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.